taylaha waa maalin jimcaha oo khayr badan socodkayga yaraa jimcaha wadnaa dhibaatada ka dhacday suuqa waahayna magaalada Hargeysa oo runtii suuq aanan ahayn cidna u gaara Soomaali oo dhan ay wax ku weyday waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay tacwiidkooda inuu siiyo in laga soo kabto dadkuna inay si fiican ugu gurmadaan dadkii wax ku noqday halkaana inuu nin walba wixii gaaray run ka sheego ilaahay hortii si wixii maaragtay tacwiidee loo qabanayo uu xaq u noqdo wabillahi tawfiiq insha Allah bismillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullay waa musiibo dhacday musiibadana dee markay dhacdo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waa macduuliyataa kuwa marka ay musiibo ku dhacday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka waxaan leenahay musiibada dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaad khayr qaba inaga siiyo wax si gaara uu xaalad gaara maahe waa wax ku dhacay bulshada oo dhan cid walbana runtii way taabatay naxdintaasna waa la wadaagayaa waxaan ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu cibaad khayr qaba inaga siiyo qaar kuwii wax ku qaatay yani waxa way cashar u noqotay ka faa'iidaystana ilaahay naga dhigo miisaanka xasanaadkana ilaahay noogu daro subxaanahu wa tacaala intii si gaara ay ugu dhacdayna waxaan leenahay ilaahay iyagana bedel khayr qaba ka siiyo meesha wixii kaga baxay ilaahay subxaanahu wa tacaala jirno ha ugu bedelo bedelkeedana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha siiyo dadka muslimiintiina ha isku gurmadaan oo ha isku diirraxaan oo dadka walaaliheena halla caawiyo taasaan odhan lahayn dal iyo dibadba waa in laga qayb qaato dadku aad ba fara badan waxa laga yaabaa ganacsiyada waaweyn oo dee la tirsanayo laakiin inta bagaash ku dhex iibinaysay dumarka meelaha fadhiyay ee waxay ku dhex yaaleen dadku yara dirooxda iyo rashiidka iibinayay waa fara badnaay marka yaan bulshada cidla hilmaamin si fiican ha loo tiro koobo waxaana laga qayb qaato marka caawintooda taas alxamdulilah rabbil caalamiin wa nastaciin calaa mawlidi yawmiddin maanta waa maalin jimcaha oo Ramadaan ay tahay 7 insha Allah waxaan ku jirnaa barnaamijkeedii caadiga ah socdaal jimcaadka buuraha waxaan saaranahay buuraha sheegaha dushooda waxaan jecelnahay inaan ka dareen celino masiibadii ka qaraxday dabkii ka qarxay suuqa waaheen kaas oo dhammaanba dadka ku waxyeeloobay ay ka soo jeedeen gobollada Somaliland iyo ereyada kale ee Soomaaliya degtada waxaan ilaahay uga baryaynaa waa bisha badan waa maalmihii khayrka waa saacadihii samada furay saacadii jabaa lagu tilmaamay inuu ilaahay dadkaasi awad khayr qaba ka siiyo dibtii ka soo gaadhayna si dhibir ramayno ilaahay inuu ka ilowsiyo wixii ka tagay wax khayr qaba ku ilaawana ilaahay gacanta soo geliya ayaan ilaahay uga baryaynaa waa dhibaato dhammaan in wada taabatay yar iyo weyn rag iyo dumar meel kasta joogno cid kasta ay ka xumaatay laakiin dad islaam baynu nahay qadarka aqoonsan baynu nahay dee qadarkeenu aqoonsana ilaahay baa qadaray ilaahay markaa waxaan uga baryaynaa inuu dadkaasi awad khayr qaba ugu bedelo maalkii iyo xoolihii ka noo halkan waxaan uga mahad celinayaa ciidamada qaranka iyo ciidamada kala duwan ee sida fiican ee qiimaha leh amniga u sugay taasina waxa weeyaan waa ta keentay in maanta ay wax waliba inoo hagaagaan saas iyo gulwa warahmatullahi wabarakatuh waa maalin jimca bishu ay tahay 7 ay tahay Ramadaan dhan ku jirnaa walaalihiin madrasa ku waxyeeloobay suuqa waaheen waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu farash khayr qaba siiyo kulli ummadda madrasa way farbadnaayeen ummadda meesha joogtay waxa loo baahan yahay in loo gurmado dal iyo dibadba waxa loo baahan yahay laga hawl qaato arrimahaasi ka dhacay meesha sidii wax loogu qaban lahaa dadka madrasa meesha ku caydoobay madrasa loogu tiri lahaa in filimkayga la qabo qof kasta oo madrasa $1 bixiso $100 bixiso ajriga waa leedahay waxa loo baahan yahay in laga qayb qaato ilaahayna waxaan uga baryaynaa fresh khayr qaba sallallahu alayhi wa sallam bismillahir rahmaanir rahiim maanta waxa weeyaan 7 bisha afraad 2022 kulli Ramadaanna waxa weeye 7 waa jimcihii ugu horreeyay bisha Ramadaan 1443 hijriyada kulli maanta dhalinyarta iyo akhyaarta socdaalku wax ka dareen celinayeen musiibadii aadka u weyneed ee soo wajahday suuqii ugu weynaa Somaliland ee waaheen ee magaalada Hargeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa bil khayr qabtay waxaan leenahay dhammaan dadkii hantida halkaa ku waayay ilaahay bedel khayr qaba uga soo dhigo runtiina waxaan dad iimaankoodu runtii qanjaa joogo mid walba wuxuu lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa siina doono waa runtood ilaahay subxaanahu wa tacaala shalay siiyey welina uu arkayaa marka waa adduunkuna isku imtixaan marka wax weeyaan fariintan dareyna wax weeyaan in dhammaan dadkaas sidii loo caawin lahaa ka qayb qaadano annaguna kaa khiyaar socdaal ahaan
dareen iyo magaranaysaa waxqabadba walaalahay waan la garab joognaa intaan baan jeclaystay inaan anaguna ku darsano khiyaarta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bishii afraad waxaan joognaa 8deedii oo ramadaan uu yahay 7 waxaan qayb ka ahay socdaalkii jimcaha ee maaragtay ka dhici jiray magaalada Boorame hareeraheeda waxaan halkan maanta la qaybsanaynaa xanuunka iyo maaragtay musiibada ka dhacday suuqa waahayn walaalaheena waxaan leenahay ilaahay maaragtay badal khayr qaba hayna siiyo waxaan xasuusinaynaa ilaahay horumarka noogu sheegay noloshana imtixaan tahay ilaahay ayaa awalba siiyey isagana ilaahayna wuu joogaa xayun oo baaqi ah إن شاء الله تعالى نيده لو نجيو وأنا الهلي دونا هرنا إلهي وحيري ولا نبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والناس هرنا الله شيء من نقص من نفط نسقام دون ضد من دونان مارتين ومالكين امتحان ونقول دون واحد مركا امتحان كي كميته هاي مركا صدور سلك الناس شيئنا وحيري عجب لأمر المؤمن قف بيوم الحالة دي سؤال عجائب هذا هاي حدي مارتي وحونا هلنا شكروا كم هذين hadduu dhib helana waxa ku sabrayaa nool walbana waxay u tahay isaga wuxuu ku helayaa ajar iyo dhibco ku helayaa marka anagana walaalayn ma garab taaganahay wixii li hooba waxaan maarkano duca iyo heli wax qabadba insha Allah ta'ala arintaasna waxaan leenahay dadka qaybaha kala duwan inay ka qayb qaataan halkaasi anagoo ku dhaqmeena xadiiska rasuulka uu yiri Allah fi awn al-abd maadaama al-abd fi awn akhi ilaahay wuxuu noo gargaarayaa intaan walaalahin u gargaarayno marka sidaas iyo maaragtay jimco wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu